حتى في سيرة عمر وعقوت الله غنيمتي أيوم مالما كمد عمر دون فريستي مرقاسو قيبين يا صحابة مرقاسو أركدين يربع عنقوان مرقاسو لي دعنت المحاك هاقو يقولوا حر غزودي حلقة صحي أيا داوعا لي جيستي بيقولوا كل داوعا مي مرقاسو العقتي بعمر سوق هذا كل بوسية كل كل قدر هذا مرقاسو عمر قيبيا سجن ولي ماشو تاجي والعقتي مترسنايا مركز عمر نكي إيش أقول افتحادنا مر لبعض مرة اللي مركو داوعي أركو أي سوق هذا كم كلو هذا للسيا مركز عمر هذا أوقيبيا مركز هذا إيش أقول افتحال كده يركب قاعد داوعك قدعي مركز كم كلو قالوا أوتريا أوسيا مركز مو عمر مركز هو يكيرا مركز اللي يقولوا عمر بن ورنيكي ماشي جوجي مي وحال حولها أتسيس بدني ذا أي لده وخير وكسر ماشي والله ما قد ارتبر عمر بن الخطاب هذو نيكا halka si joogi laha oo isheedu mar walba nabarka diinta ilaahay loogu dhaawacay isheedu ku dhici lahayd xoolaha halka ayaa la isaga ku dhameyn lahaa buuli man ilaahay dartii u caawirmay oo diinta dadaalkeega iyo koryeelkeega iyo difaaceega loo dhaawacay baan adduunyo ka haysan buuli anigu may wallahi waan ku bixin lahaa ruux meesha yaalo dhanba dadku inay ilaahay jalla wa ala ku xirmaan ba muhiimadu ay tahay jannada dhanay adduunyaduna waa ilaahay macrifadiisa imaam ghazali rahimahullah ya oran jiray jannada adduunyadu waa ilaahay macrifadiisa ilaahay garo bas maalin buu nabigeenu alayhi salaatu wasalaam miskiidku soo galay wuxuu arkay nin reer baadiye ah oo salaad tukanaya oo salaadii dhexdeedana ku ducaysanaya uu istaagay nabigu markaa ducadii buu dhageystay waa duco cajiib ah duco boqolkii 90 waa ilaahay ammaantiisa ya man la tarahu al-uyun wala tukhaliduhu ad-dunun wala yasifuhu al-wasifun wala tughayyiruhu al-hawadith wala yakhsha ad-dawair ya man ya'lamu mathaqil al-jibal ila akhir kayga markaa uu nabigu dhaama Musa al-Ash'ari buu yeeray wuxuu ku yiri ninka ducada markuu dhameeyay keen buu ka yiri markaa baa loo yeeray ninkii nabiga ku doonayay namar marxaba markaa uu nabigu sallallahu alayhi wasallam ghanima markaa la soo qaaday oo xoolo markaa uu qaybinayay ayuu kiish lacag intuu ka soo dhex qaaday buu nabigu ninkii gacanta kaga riday nin baahan oo faqiir oo reer baadiya oo kuus lacag loo dhibay ka warama saas uu qalbay uu farxay markaa buu nabigu ku yiri lacagta sababta aan ku siiyay maad garan buu ka yiri markaas uu ha maxaad u malaynaa ku siiyay da tolnimadii siisay buu yiri markaa buu nabigu ku yiri waa runta riximkuna xaq way leeyihiin wax la isku siiyay laakiin lacagtan ujeedada ku siiyay waxa weeyaan bihusni thanaa'ika ala allah sidaad hadeertoon ilaahay aad u ammaanaysay ayaa ku farxay buu rasuulku yiri taa darteed baan ku siiyay buu yiri sidaad ilaahay u baryaysay sidaad ilaahay u ammaanaysay waayo maqsuudka nabiyada adduunyada loo keenay baa ahaa inay bini aadanka ilaahay ku xidhaan markuu arkay nabigu shaqadiisii oo socota uu ku farxay nabigu calayhi salaatu wasalaam dana uu siiyay تعلق إلهي دتك إلى الهين بنبي أكتس كوينه لعبت أكتس كوينه